TikTok ayaantan waxa ka jirta cilad ah in followerskaaga ay dib u laabtaan ama meesha ay ka kori lahaayeen hoos u laabtaan. Inta aan ciladaasi aan ka hadlin ka hor waxaan rabaa in ay idin sheego ama ay idin tuso gabadhan walaasheeda ah oo ka cabanayso barnaamijkan ama ciladaas ka cabanayso. Ila dhageyso marka hore. TikTok cilad yar iga haysato ciladaas oo ah followgeyga inuu gadaal u socdo dad badan oo ka cabanaya waa arkata wiil ee keenka maad jecel ugu qoranta ka cabanayay marka in laga caawiyaa rabay qof igu dhaw ana waa isku day inaan hagaajiyo laakiin waa hagaajin waaye marka wiilal badan oo TikTok wax u soo gudbiyana jiraan oo waxyaalo badan ay ka faa'iidnay ilaa qaraxsiye marka wiilashaas hata ani wiil cabeel lahaay ka garanaya waatahay waxa filaya in aad aragteen gabadhaasi ama walaasheena cilada haysto oo ah followerskeeda TikTok oo hoos u dhacayo marka hore ciladan waxa keento update-kii ugu dambeeyay ee lagu soo bixiyay TikTok dad fara badan oo waxa jira ku soo follow gareeyay isla markaasina uu ka dhumay ama uu ka halaabay TikTok-na hadii 3 bilood ku dhawaad ah isticmaal waysa ama qofku wax uu soo dhigi waayo ama dhaqdhaqaaq laga waayo in uu wax ka daawado ama qof oo u love gareeyo ama userkaas laga waayo wax oo dhaqdhaqaaq ah waxa la sameyn doonaa hawada ayaa laga bixinaya waxa jira marka dad fara badan oo ku soo follow gareeyay oo 3 bilood ku dhawaad ah aan isticmaalin sidaas darteeda oo ciwaanadooda hawada laga bixiyay saas ayuu hoos isku guraya laakiin ma dareemaysid hadii muuqaaladaada oo daawasho badan ay haystaan ama oo muuqaaladaada ay yihiin kuwa active ah ee kor u socdaan tusaale ahaan muuqaal ayaa soo dhigtay daawasho badan ayuu helay dad fara badan ayaa ku soo follow gareeyay ma dareemaysid markaasi in macnaha followgaaga hoos ay u laabanayaan laakiin hadii muuqaal aad soo dhigtid isla markaasina 1000 views u gaaro emailahas ama 2000 views ah waxaad dareemaysaa in dadka hoos ay u soconayaan sidaan kuu sheegaba update-ka waxa laga dhigay hadii dadka 3 bilood ama 2 bilood gudahooda qofka dhaqdhaqaaq laga waayo oo soo gali waayo TikTok-giisa hawada ayaa lagu cunayaa ama hawada ayaa laga saarayaa marka si aad hor ugu socotid ama aad u heshid sida caadiga ahaa in uu koro followerskaaga waa in muuqaaladaada ay helaan daawasho aad u fara badan marka gabadhan walaasheena ah cilad aad u badan ma haysato ciladeeda cilad weyn ma ahan waxay u baahan tahay oo kaliya in ay muuqaaladeeda ay active ay ka dhigto ama ay helaan share fara badan ama ay helaan comments fara badan ama ay helaan daawasho fara badan muuqaalkeeda ama ciwaankeeda ayaa hoos ku soo mishin garin doona ciwaankeeda gala kadibna muuqaalkay aniga u soo mishin gareysay ha loo kala kiciyo love badan ha loo saaro share badan ha loo dhaho commentigana ha lagu soo mishin gareeyo qof walba ciladaas haysatan insha Allah ama cilad kala haysato oo ugu soo mishin gareeyana waa caawin doona wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh